Ma ogtahay sababta ama kaaga leh ee aysan India uga qayb galin World Cup-ka ama Koobka Adduunka? Dad badan baa waxay dhahaan FIFA uma ogola India Koobka Adduunka sababtoo ah ciyaartoyda dalkaas ayaa ciyaara kabo la'aan dhaqan diimeed aawadeed ama ay sixir iyo indho-sarcaadyo la imaanayaan. Laakiin taasi waa been iyo hawo aan raad lahayn. Marka la maqlo magaca India, maskaxdaada waxaa isla markiiba ku soo dhaca samaynta aflaamta iyo dad ka badan 1.4 bilyan oo qofood. Laakiin hal su'aal baa maskaxda dad badan maanta ku soo dhacda, taasi oo ah sidee buu dal weyn oo tirada dadkiisa intaa ay la eg yihiin uga maqnaan karaa Koobka Adduunka ee kubadda cagta? Balse ma ahan in aysan jirin taageerayaal jecel ciyaarta. Malaayiin taageerayaal ah ayaa si xamaasad leh u daawada ciyaaraha Yurub iyo Laatiin Ameerika. Laakiin marka la gaaro tartanka Koobka Adduunka, India waa mid mar walba ka maqan saaxadda garoonka. Haddaba maxaa hor istaagay? Sababta arrintani waa mid ka yaabin doonta. Sanadu markay ahayd 1940-yadii, India waxay ahayd mid ka mid ah xulalkii ugu fiicnaa xilligaas. Laakiin sanadu markay ahayd 1950-kiina, ciyaartii Koobka Adduunka markaas waxaa lagu qabtay Brazil. India rajo weyn ayay ka lahayd ciyaarta, laakiin India waxay xamili weysay oo dhib ku noqotay lacagta tirada badan ee ku baxaya safarkaas aadka u dheer ee India iyo Brazil ahaa. Markaas ayayna xulkii dalka India ay go'aansadeen inay ka baxaan guud ahaanba ciyaarihii sanadkaas, ayna ka qayb galaan ciyaarihii Olombiga ee dhacayay 2 sano kadib, xilligaas oo ahayd 1952 oo ka dhacayay dalka Finland. Ayadoo keliya ay ka dhiman tahay ciyaarihii 1950 10 maalmood ayaa India ku wargelisay FIFA inaysan ciyaarahaasi ka qayb galin sanadkaas. Markaas ayayna ahayd xilligii uu waayay xulka dalka India fursadii dahabiga ahayd ee ka mid ahaanshaha World Cup-ka. Dad badan ayaana maanta waxay dhahaan taasi waxay ahayd qaladkii ugu weynaa ee ay abid gasho India, weliba dhanka ciyaaraha. Dib u fikir, waxaa jiray waqtiyo ay India ahayd mid awood ku leh qaaradda Aasiya iyo guud ahaan dunidaba. Xitaa waxay ku guulaysatay India model dahab ah oo ciyaarihii Olombiga sanadihii hore. Laakiin taasi waxay ahayd kubadda cagta ee ciyaarihii Olombikada ee ma ahayn FIFA World Cup. Haddaba sababta ugu weyn ee weli ay India ugu biiri la'dahay Koobka Adduunka ama World Cup-ka waa maalgashi la'aan, nidaam tababar liita iyo habdhismeed ciyaareed oo aan u diyaarsanayn heer caalami. Waxaa intaa dheer, horyaalka gudaha oo aan si buuxda loo horumarin ayaa ka dhigay mid aan dhalin xidigo heer sare ah. Laakiin hadda waxay India dib u bilaabaysaa safar cusub. Waxaa la dhisay horyaal cusub, waxaa lagu maalgelinayaa da'yarta, waxaana la hirgelinayaa barnaamijyo horumarineed. Intaas ayaan jeclaaday inaan idinla wadaago. Hada wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.